وايد سلام صاحبيال maanta waxa khulaasadeena filan aad u xiiso badan oo magaciisa Marionette inta muuqaal guda galin waxaan ku xasuusinaynaa muuqaal kale ka saartay saaxiib nagu cusub hadii aad tahay subscribe soo channelka gambaleelkana furo filimkeen wuxuu ku bilaabanaya gabadhan quruxleeda ah oo isku diyaarinaysa iskuulka ayadana waa tiriishadeena filimka magaceedana waa Min si fiican ay isku diyaarinaysay ayadana hooyadeeda uu ciise waxay u sheegaysaa in iskuulka ay ka daaday Min markay qolka soo baxday hooyadeeda waxay arkaysaa Min make up fara badan ay soo marsatay Min hooyadeeda waxay ku dhahaysaa mar labaad ma soo marsatay make upka ayadana markay aragtay in la fahmay hooyadeeda ay ka baxsanaysaa Min hooyadeeda maqaayad ay leedahay alaabta maqaayada ay la soo qaadaysaa hooyadeeda ayadoo maqaayada fur rabto Min waxa ku dhahaysaa waan daahay wayna ka soo tagaysaa kadib iskuulka ay imaanaysaa asxaabteeda waxa ku dhahayaan maanta soo daaday maxaa ku dhacay xalay ma shukaan ku daaday ayadana waxa sheegaysaa in caawa balan qof la leedahay saaxiibteeda waxa ku dhahaysaa oo saaxiib ma leedahay saaxiibteeda kale waxa ku dhahaysaa oo ma ogid miya in wiilka dugsiga sare dhinacaas dhigto inuu wax ka dhaxay xiriir leeyihiin Min saaxiibteeda waxay weydiinaysaa xiriirka leediin meeqa ka soo wareegatay Min waxa ku dhahaysaa inta xiriirka aan leenahay bil ka soo wareegatay Min iskuulka marka la soo daayo meesha ku balameen wiilka ay imaanaysaa sidii cabaar u sugaysay kadib kiim asagana oo imaanaya wuxuuna ku dhahay waqti badan ma isugaysay hadda intee aadna cuntada sandwichka hilibka ma jeceshahay Min waxa ku dhahaysaa haba jecel cuntadaas kadib way soo wada raacayaan wuxuuna keenayaa baarka markay wax wada cunaan asagana hees ayuu qaadaya markuu cabaar u heeso kadib meesha labadooda ay wax dhex maraayo maalmo kadibna labadooda ay balamayaan Min hooyadeeda telefoonka been u sheegaysaa waxayna ku dhahaysaa saaxiibteeda caawa cabaar soo jooga ayada kaligeeda guriga ku tahay wayna cabsanoosaa xaafadeeda noo dhowdahay markay hooyadeeda timaado guriga ayaan soo laabanaya kiim asagana dhinac kale ayuu ku sugayay gacmeena is soo qabsanayeen labadooda gurigiisa ay isku soo raacayaan kadib markay wax wada cunaan Min waxa ku dhahaysaa guriga ku laabana markay kacdo ayuu sii bixi rabto ayuu gacanta ka qabanaya wuxuuna ku dhahayaa wax yar ma sii joogtid Min waxa ku dhahaysaa hooyadeeda xaafadii ku sugayso wayna igu walwalay kiim waxa ku dhahayaa wax yar leh 10 daqiiqo camal ayadana way ka ogolaanaysaa kadib markay wax badan cabto way seexanaysaa markay soo kacdo waxay arkaysaa kiim oo kor taagan kiimna mar labaad ayuu cabitaan u shubaya ayadana waxa ku dhahaysaa bas waa ka dhargay waa caaw wax ugu filan kiim sharooba ayuu soo qabanaya wuxuuna ku dhahayaa sharoobadan cabitaanka saaka baxaayo kadib Min sharoobada ay cabaysaa wax yar kadib markay indhaha kala furto waxay arkaysaa ayadoo xirxiran kiimna qolka ayuu ku soo baxaya soo kaamir wato oo duubayo Min intay yaabta ayuu ku dhahaysaa maxaa sameynaysaa kadib asxaabtiisa qol ku jirtay ayuu u wacayaa ayagana qolka ka soo baxayaan ayagoo waji maas ugu jiro oo saaid u badan kadibna way qabanayaan asagana uu duubayay kulligoodna meesha ay ku wada kufsanayaan maalmo kadibna Min waxa loo soo dirayaa muuqaaladii laga duubay ayadana oys ay bilaabaysaa oo inteedna hooyadeeda maqlayso hooyadeeda markay qolka soo furto Riim waxay iska dhigaysaa inay hurdayso Min subaxdii intaysan iskuulka aadin hooyadeeda waxay ku dhahaysaa intaba ka guuri karnaa siyool ma degi karnaa hooyadeeda waxay ku dhahaysaa maxaa dhacay asxaabtaada ma soo dagaasheen maalmahan qolkaada lay ku jirtaa mana soo baxdid qofna ma la hadloosid xataa saaxiibtaada gurigeeda ma aadoosid mana la seexid habeenada Min ooyina ka soo fakanayso waxayna ku dhahaysaa wax saas uma jiraan wayna ka soo tagaysaa habeenkii ayadoo xaafadu soo socoto waxa wadada u galay Kiim wuxuuna ku dhahayaa waqti dheer ka soo wareegatay ma aho maalmahan ma ku soo xiriirin markuu aan ka walwalay Min waxa ku dhahaysaa sidee ku ogaatay inaa inta aad joogo Kiim waxa ku dhahayaa waxaan maqlay inta inaad degantihiin ilaa yaraantaada oo aad jeceshahay cuntooyinka fudud hooyada sidaas darteeda inay inta maqaayad ugu furatay horta maqaayadiina magaceed Min ooyina dhulkay fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa qof dhan ku sheegay ilaa dhimanayo waana ilaalinaya sirtaan qof kale mu sheegay wixii dhacay iska hilmaam Kiim waxa ku dhahayaa wixii dhacay inaa hilmaam maarta kadib asxaabtiisa geesaa ka soo baxayaan kadib waxa uu soo bixinayaa sharoobada wuxuuna ku dhahayaa sharoobada hadii aad caami sharoobadan bari ardayda dhan way arkayaan muuqaalkaada Min ogolaanay ayadoo caab rafto waxa ku dhahaa weligaa ilaabina tahay boombalahayga anigana waxaan ahay mudanahaaga kadib Kiim kaamirada ayuu shidanaya ayadana sharoobada cabaysaa kadib waxay ku sameynayaan kulligooda maalmo kadib Min hooyadeeda waxa uu imaanaya iskir lagu magacaabo Koog wuxuuna ku dhahayaa gabadhaada ma dhigato iskuulka dugsiga sare ee la dhaho Young Beyond hooyadeeda waxa ku dhahaysaa way dhigata ee maxaa dhacay Koog waxa ku dhahayaa wax yar ma wada hadli karnaa kadib waxa uu tusiyaa sawirada gabadheeda iyo waxyaabaha ay ka duubeen Kiim iyo asxaabtiisa hooyadeeda markay aragto way ooyinaysaa Koogna Min hooyadeeda waxa ku dhahayaa dambiilayaasha soo qabanayna intaysan arrintan faafin oo aysan saxaafada ka hadlin Min hooyadeeda waxa ku dhahaysaa waa ku bariyo kalsoonahay dambiilayaasha soo qabo kadib Koog waxa soo bacay mid wariyo saaxiibo ay yihiin kii wariyo ahay ayuu xogta kiis gadanaya Kiim iyo asxaabtiisna booliiska soo qabanayaan markay saldhigga soo baxaan Min iyo hooyadeeda saxaafada banaanka sii sugayeen sawirana ka qaadanayaan Min kiiskeeda uu faafaya kii wariyo xogta laga gatayna banaanka u taagnaa soo qoslayo Koogna gaariga ayuu saaraya Min iyo hooyadeeda markuu soo wada waxa ku dhahayaa baaritaan kiiskan mid qarsoodi inay noqday ahayd marka xogta kiiskan banaanka u baxay markii garaal noqda marka wariyaashan dhibkooda badan mana idin dhaafayaan marka magaalo kale iskaga guura Min xaaladeeda xumaanayso meesha ku dhaxmantagay oo kiyaaskan meesha u dhaca hooyadeeda waxa ku dhahaysaa isbitaalka leena geey sanado badan ay ku soo wareegsanayso dhibkii gaaray sanado kadibna Min macallimad ay noqonaysaa Min nolosheedii hore way iska hilmaamtay magacana way bedelatay waxayna baxsatay magaca Riin markay fasalka soo gasho ardayda u hambalyeynayaan far ingiliiskeeda iyo mardhowin arooskeeda dhici rabo kadib markii ardayda la daayay Riin waxay imaanaysaa xafiiska macallimiinta ayadan saaxiibkeeda la hadlaysay waxayna u sheegaysaa inay ardayda ay ogaadeen far ingiliiskeeda waxayna qorsheynayaan meesha lagu dhigi lahaa arooskooda kadib markay damiso telefoonkeeda waxay arkaysaa kafee meesha loo sii saaray waxaana ku qornay waxaan kugu hambalyeynaya noloshaada cusub kadib Riin kafeega ay cabaysaa ayadana xafiiska ay dhex seexinaysaa markii subaxdii la gaaro ardaygeeda ayaa kicinayo markay geesaa xafiiska fiiriso way la yaabaysaa in subaxdii la gaaray Doongna waxa ku dhahaysaa meeqa saac waaye Doongna waxa ku dhahayaa waqtiga daaburka wax yar ka dhiman ayadoo istaagi rabto way wareeraysaa Doong markuu qabto waxay ku dhahaysaa orod fasalkeeda aad markuu baxo Riin gacmeeda ay fiirinaysaa waxayna arkeen gacmaha laga xiray ayna gaduuteen gacmaha kadib suuliga imaanaysaa markay wajiis ka dhaqdo ayadoo la yaaban gacmeeda wax gaduudiyay ayaa fariin loo soo diraya wuxuuna ku dhahayaa hal riif fiican ma ku riyootay
imaatay. Riin waxay ku dhahaysaa adiga waay. Asagana wuxuu dhahay aniga waxaan ahay mudanahaaga. Riin waxay sheegaysaa inuu nambarka u khaldan yahay. Kadib wuxuu soo dirayaa sawiradeeda ayadoo suuxsan oo xaalad kale ku jirto. Riin markay sawirada aragto way naxaysaa. Kadib banaanka ay u soo baxaysaa ayadoo naxsan oo maskaxdeeda maqan tahay. Ardayda ay ku dhacaysaa taleefankeeda dhulka ayuu dhacayaa. Markay taleefanka u soo qabtaan oo taleefanka ay fiiriso haddana muuqaal ayaa loo soo dirayaa ayadoo xirxiran oo agteeda ay joogaan niman badan. ayagana muuqaalay ka duubayaan boorsadeeda wax ugu jira oo dhan dhulka ayna ku daadinayaan. waxayna soo bandhigayaan ID-geeda iyo sawirada boorsadeeda ugu jira oo dhan. qoraal ayuu soo diraya wuxuuna ku dhahayaa hadda kadib waxaa qaadan doontaa amradeeda oo keliya. Riin ilana ka soo daadanayso. maalintii xitam kala gaaray Riin waxay u tagaysaa maamulada iskuulka ayadoo weydiinayso wixii maalinta Arbacada dhacay. kadib waxaa imaanaya waardiyaha iskuulka. kadib asigay ku dhahaysaa ma arki karaa habeenka Arbacada kaamirooyinka iskuulka waxay duubeen. waardiyaha wuxuu ku dhahayaa mar horaa soo sheegay warbixintaas inay cilad ay ka jirto ee halaabeen isbuucan kaamirooyinka siday u sameeyaan. habeenkii ma kala gaaray waxaa casho ku casuumeen qoyska ninka isguursan rabaan. ayadoo la sheekaysanayso waxaa loo soo dirayaa fariin waxaanu ku dhahayaa dharka hoosaa soo gashatay midabkee waa inaa ogaadaa rabe. waxyar kadibna odayga sodogeeda noqon rabo ayaa macalin sawirkeeda loo soo dirayaa iyo magaca Riim xarafka ugu horeeyo. wuxuuna dhahayaa waxuna ay soo direen balaaqawayaashan. ninka guursan wuxuu dhahaa labadan beri waxaa iska jiraan dadka muuqaal xun loo soo diraa si lama filaan adigoo ogeen. badanaana dadka qaar saasaa loogu soo diraa si ku nasiibsa ah. Riin ayadane waxaan kii inoo ka dambeeya markay dareento kadib waxay soo aadaysaa suuliga. qoraal ayuu soo diraya waxaanu ku dhahayaa amarkii maa diiday hadda wixii aan ka hay ma tusaa jaceylkaaga ciddiisa asagoo dhammaystiran iyo magacaagoo dhammaystiran. Riin amarkiisa ay qaadanaysaa kadib sawir iska qaaday wayna u diraysaa asaga. maalintii xigteen waxaan arkaynaa kii askariga ahaa oo shaqada askarinimada ka fadhiistay waxaana iska furtay meel PlayStation-ka lagu dheelo. Riina meeshiisa ay ugu imaanaysaa asagana markuu arko uu faham waynaya. kadib banaanka ay soo wada fadhiisanayaan. Riin waxay ku dhahaysaa kii ma xasuusataa waxaan rabaa ninkaas inaa baaritaan ay igu samaysid meeshuu ku dambeeyey. kookna wuxuu ku dhahayaa waan ku aqoonsan waayey qof weyn aa noqotay laakiin kiiskaas kiis hore ahaa. Riin waxay ku dhahaysaa waxba su'aal ha i weydiin keliya darteeda baaritaan ugu sameey ina raadi qofkaas. kookna wuxuu bilaabay inuu weydiiyo askarta asxaabtiisa ahayd kii meeshuu ku dambeeyey. saaxiibkiisa wuxuu ku dhahayaa kiis kiima sheegaysa kaas mar walba cabitaan badnaa cabtid waa sheegi jirtay inuu ahaa kiis madax xanuun kugu riday. wiilkaas kiima ahne baxsad waa la raadinooyaa. kiimna markay gurigeeda timaado ayadoo sariirta iska jiifto qoraal kale ayaa loo soo diraya waxaanu ku dhahayaa hadiyadeeda beri ka soo qaado stoorka iskuulka. subaxdii marka la gaaro stoorka ay imaanaysaa. markay geesaha fiiriso waxay arkaysaa kursiyo loo sii saaray sharoobadii hadda kahor la siin jiray markay yareed. markay usoo dhawaato sharoobada warqada meesha taala ay soo qabsanaysaa. warqadan waxaa ku qorneed isdiyaaray. Riina waxyaaba yaraanteeda ay soo xasuusanaysaa madaxaana wareeraya madaxa ay qabsanaysaa. kadib sharoobada ay soo qabanaysaa darbigeenu ku jibine. kadib markay timaado suuliga ayadoo weji iska dhaqayso qoraal kale uu soo diraya waxaanu ku dhahayaa hadiyadeeda kama helin miya. kadib ayadoo kor soo fuulayso waxay dariishada ka arkaysaa ardaydeeda si Jeong iyo Dong oo isla taagan oo wada doodayaan. ayadana ka shakinaysaa. kadib fasalka ay ku soo laabanaysaa ayadoo cashar siinaysa ardayda ayuu qoraal u soo dirayaa wuxuuna ku dhahayaa amradeeda diidama aho waa loo inqaabayaa maanta. ardayda fasalkana fariina ugu soo wada dhacayso garuubka waxaa la dhahaa ilaa 10 tirsada. kadib qofaa la soo qarxinaa. Riina way yaabaysaa ayadana ardayda ku qeylinaysay waxayna ku dhahaysay taleefanka damiya ay soo socoto. Riina ardayda markay warka maqli waayeen dhulka iska fadhiisanaysaa ayadoo naxsan. ardaydan warkaas kuma socon waxay sugayeen qofka la soo qarxin rabo. ilaa 10 markay dhamaato qofkii waa la soo dhigayaa. Riina ardayda markay aamusan ayay kor u soo kacaysaa. ayadana markay taleefanka fiiriso waxay arkaysaa ardaydeeda mid kamid ah sawiradeeda in la soo dhigay ayadoo wejiga loo qariyay oo kaarka magaceeda iskuulkan la soo raaciyay. Seejiyoon ardayda dhan way soo fiirinayaan. fasalkan orod ugu baxaysaa. Riina way ka daba ordaysaa gabadha kadib way weynaysaa meel ay ka baxday. kadib ayadoo xafiiska joogto ardayda waxay u soo sheegayaan inay iskuulka dhan ka raadiyeen ayna waayeen. kadib waxa uu imaanaya Dog waxaanu ku dhahayaa waxaa laga helay beerta noo dhow ee meesha ay joogtaa. macallimada Riina dhinaceeda ay u soo ordaysaa waxayna arkaysaa ayadoo kursi ku fadhiso. Seejiyoon markay macallimada aragto ayadoo ka ordi rabto Riina soo qabanaysa kadib hab ay siinaysaa. kadib gudaha ku soo laabanayaan. Seena waxay ku dhahaysaa askartan uu sheegi karay bas waana ii dhamaatay hadda la soo dhigaa meel walbo. Riina waxay ku dhahaysaa marka koowaad naso arrintan si degan ugu fikir mana ii sheegi kartaa wixii dhacay. Seejiyoon waxay ku dhahaysaa maalmo ka hor Riina la soo qoray anoo xaafad u sii socdo. Riina waxay weydiinaysaa qof qoraalka u soo diray. Seejiyoon waxay ku dhahaysaa mudanaha ii soo diray wuxuuna igu dhahay stoorka imo ee hadiidaada ka qaado. anina waxa u maleynaa inay kaftan ay tahay. markaan stoorka tagay waxaa meesha taalay sharoobo. markaan cabay kadib markaan soo toosay meeshan waxaa joogin ayagoo badan waana cabsadaan aqoonsan waayay. kadib way ooynaysaa macalimiin way aamusiinaysaa iyada. kadib in xaafadeeda ay soo aadaysaa. markay xaafadda timaado waxay dareemaysaa inuu gaari daba socdo. kadib gurigeeda ay soo aadaysaa ayadoo albaab guriga iska furayso. waxaa gadaal ugu imaanayo ninkii isguursan rabeen. Riina hal mar ay isku naxaysaa. asagana wuxuu ku dhahayaa maxaa ku dhacay intee aaday taleefanka miga qabanaysidee. Riina wuxuu ku dhahaysaa iskuulka dhib yar ka dhacay. kadib gudaha ay soo galayaan wixii dhacay ayay inuu sheegaysaa. asagana wuxuu ku dhahayaa askarta maxaa ugu sheegi weyseen labadan beri arday ma jiraane cabsi waa ayaga dhane laakiin ayada meeshaas maxay ka doontay horta. Riina wuxuu ku dhahaysaa weli askarta ulooma sheegin waxaan rabnaa inaan si tartiib ah u baarno arrintaas. asagana wuxuu ku dhahayaa waxaas faa'iido ay leedahay ma jirto askarta kura geliya si degdeg ah haddii mar muuqaal ka duubeen meeshaas wax ma yaalo. mar hore ay ku faafiyeen internetka iyo website-yada ay leeyihiin sidee muuqaalkaas lacag ku sameeyaan waqtina iskaagu dhimin ardaydaas. askartan uu sheegay arrintaas meesha ku xiran tahay. dadkaas waxaas ka duubay dad fiican ma aha. waxaa laga yaabaa inay ayada ay dalbatay waxaas in laga duubo arrintaasna iska caddahay. Riina waxay ku dhahaysaa haddayba runta in muuqaalkeeda u faafo gabadhaas maxaa la gudboon inay samayso. asagana wuxuu ku dhahayaa hadduu waxaas laga faafiyey maxaa meesha yaalo qoftaas nolosheedu dhan way burtay wax u harayna ma lahan. Riina ayadna jawaabtiisa ay la yaabaneed. maalintii
maalintii xigtayna Rain ardayda xiisad siinaysa markay xiisada ka dhamaato ardayda markay baxayeen ayayna doonay ka shaqeysneed inuu yahay mudanaha ardayda markay baxaan waxay u imaanaysaa Sejong waxayna ku dhahaysaa waxyar ma wada hadli karnaa labadeena kadib banaanka ayay wada imaanayaan Rain waxay ku dhahaysaa ku weydiin karaa adiga Dong xiriirka idinka dhaxeeyo darada labadiin dariishadeen idinka arkay adigoo wada doodayaan waxaan maqlay inay isku dhawdiin labadiina Sen waxay sheegaysaa inay jeceshahay Dong sanad ka horna marka isku fasal aan noqonay aad ugu faraxsanaa markay xiisad ka soo baxeen hadiida ayuu keenaysaa Dong maalmo kadibna ayagoo xiisad ku jiro ayuu fariin u soo qorayaa wuxuuna ku dhahayaa weli ma i jeceshahay aniga darteedina wax ma samayn kartaa Sejong waxay ku dhahaysaa haa u samayn karaa ee maxaa waay waxaas asagana wuxuu ka rabay ayuu sheegayaa kadib markay ka ogolaato gurigiisa ayuu keenayaa muuqaal ayuu teleefankiisa ugu duubayaa kadib labadooda meesha wax ku dhex maraayo Rain waxay ku dhahaysaa laakiin wiilkaas fasalkan kuu joogo wiil fiican oo eg yahay Sejong waxay ku dhahaysaa cidiisa taajiriin ah marka waxbarashadu ku dadaalaa maalin kalena wax ka darnaa ogaaday anigoo isticmaalayo kombiyuutar qaybta wiilasha in wiilasha iskuulka in kombiyuutarka meel ka mid ah inay muuqaalo ku qariyeen markaan fiiri folderkaas inay ku jireen sawiro iyo muuqaalo gabdho fara badan markaas la ogaaday Dooney aniga maalintaas wixiina dhex maray inuu duubanayay oo kaamira meel ugu qarsaneed maalinta isku arkaysayna Rain Dong wuxuu ku dhahayaa wixii aan kaa duubo dhan waa kaa tuuray waxay ku dhahaysaa waxa iga tirtay ma lahan macalimadda iyo waalidiintaada ay ku sheegaya asagana wuxuu ku dhahayaa an dabaalma kula ekaaday inaan koobi keesin ma umalaysaa asagana dharbaxsho ku waabinaya wuxuuna ku dhahayaa waxaan ku diyaariyay munaasabad ku gaar ah waana arkaynaa markaas kadib hadaba isla weyn sii dareentay Sen wax macalad ku codsanaysaa waxba ka weydiin arrintan doonna la hadlin Rain waxay ku dhahaysaa taas waxba ka walwalin horoma u maqashay magaca Kim laga yaabay Doo inuu xiriir la sameeyay ama inuu wacay ama qoraal inuu u qoray Sejong waxay ku dhahaysaa Kim yaa waay hore wiligeed ma u maqlin Rain gurigeeda markay tagto waxay fariin u diray koog waxayna ku dhahaysaa Kim baaritaan ku samaysay kadib ayadoo soo wacaya wuxuuna ku dhahayaa waan raadiyay Kim inta xogtiisa ku sheegin waa inaa ogaada sababta asaga u raadinaysid kawan marka wax kaaga sheego kadib aa heshid hadaa waxaan ku samaysid anigana markaas baxarka ku gul jira baxar ma igelinay Rain waxay ku dhahaysaa waxnu malaynaa inaa khalad aan galay marka waxaas dhan iska hilmaam ayadoo telefoon gudamin rabto koogna wuxuu ku dhahayaa wax yar suug ninkaas Kim la dhaho hal mar la waayay booliiska dambiib badan ku haystaan baxsadna waay hadda runtii sheeg ninkaas dhib kale cusub ku geystay Rain waxay ku dhahaysaa saas wax uma jiraan waxaasna wax hore ahaayeen kistaan ku dhiban karaa noqo hadda waxaas dhan iska hilmaam kadib telefoonka ay ku daminaysaa maalintii xigtayna ardayda markii iskuulka laga soo daayo Rain banaanka ku sugaysay Dong kadib waxa fariin soo diraysaa waxay ku dhahaysaa Dong qof wala kulmi rawaacaba waxa laga yaabaa qofkaas inuu yahay Kim Dong markuu iskoolka soo baxo Rain way dabagalaysaa Rain habeenkii dhan way dabagalaysay sidee u daba socotay oo u dabagalaysay asaga iyo asxaabtiisa waxay galayaan baarka Rain ayadana baarka ay ka dabagalaysaa kadib waxay arkaysaa qolkay ku jiraan Rain markay fiiriso ayadana isqarinaysaa mar labaad markay fiiriso ayagana way fahmay irideeg soo fiirinayaan Rain markay naxdo meesha urud ugu soo baxaysaa ayagana soo bursanayaan sida cabaar u bursanayeen Rain sidii u urdaysay kadib waxa qabanaya koog meel gees ayuu ku qarinayaa ayagana markay waayaan iska baxayaan Rain wuxuu dhahaysaa koog adiga maxaad ka qabanaysay koogna wuxuu dhahayaa mar koowaad daawacan gacanta ka leh wax aan kaaga xiro kadib meel ay fadhiisanayaan gacanta ayuu faashad ugu xirayaa Rain wuxuu dhahaysaa ilaa inta dabagalaysay aniga waan kuu sheegay inaa iska hilmaamto wixii hore koog wuxuu dhahayaa haddaan awoodo iska hilmaamin lahaa wixii hore laakiin ma awoodi taas Rain wuxuu dhahaysaa taas dhib ma lahan askarta wacaya ayaga wargelina koog wuxuu dhahayaa waxaa lagaaga baahnaa markii koowaad inaa askarta aa wargelisid aniga maxay ugu timaaday ayaga lagaaga baahnaa inaa weydiisid kii meeshuu ku dambeeyay adigna taas ma awoodin askarta u tagtid aadna wax u sheegtid Rain wuxuu dhahaysaa guriga ku laabana wayna ka tagaysaa Rain ayadoo sii socoto wuxuu ku dhahayaa haddaan runta ka hadlo agtaada daacad kama sii ahaan dooni aniga ayuu ahaa qofkii banaanka u bixiyay kiiskaada markaa yareed anigana wariyaha siiyey warbixinta kiiskaada wariyahana wuxuu igahay ayuu gurigaateynayay asagna markaas kiiskaadu saaid u rabay waxaan u baahnaa xog inuu ka helo markaas anigana waan siiyey xogtaas markaas kadibna damiirkii ayuu ogolaaway inaan nasto dhibaatadaana adag keligaa ma xalin kartid markaan iskaashano si wada jir aan u xalin arrintaas Rain wuxuu soo tuuraysaa wuxuu dhaawac ugu dhajiyey waxayna ku dhahaysaa haddana siina waa inaan dareentaa taasna dhib ma lahan waxna kuuma haysti waxaana kuu rajeynayaa nolol fiican wayna ka tegaysaa koogna wuxuu dabagalayaa kuwii soo bursaday Rain mid ka mid ayuu meel ku qabanayaa markuu si fiican u garaaco wuxuu ku dhahayaa su'aalahan ku weydiiyo si fiican u degan iigu jawaab Doomiya hogaamiyaha tiimkiina asagana wuxuu ku dhahaa ani waa tiimka hogaamiyihiisa wiilkaas Doon la dhahana aabihiis waxa waay garsooraha ugu sareeya Kuuriya koogna wuxuu weydiinaa gabadhaas maxay u bursanayseen asagana wuxuu ku dhahayaa asxaabteeda bursanaysa gabadhaas anigana iska daba raacay leh koogna markuu jawaabtiisa ku qanci waayo laba haraanti ayuu gelinayaa asagana wuxuu ku dhahayaa bas haraantida iga dheh mudanaha nugu amray inaan bursano koog markuu maqlo magaca mudanaha wuxuu ku dhahayaa mudanaha yaa waay nin ajnabi miya asagana wuxuu ku dhahayaa ma og wuxuu yahay kaliya qoraal noo soo dira ama email mararka qaar asagana wuxuu noo sheegay inay gabadhaas ayna aragtay markaasna aan soo qabano kadibna muuqaal aan ka duubno koogna wuxuu weydiinayaa maxaa muuqaalka aad duubaysiin gabadhaas asagana wuxuu ku dhahayaa muuqaal ayadoo si kale ah ayuu naga amray inaan ka duubno kadib meesha askarta imaanayso koogna wiilku wuxuu ku dhahayaa orod meeshaan ka carar askartiina isku arkine maalintii xigtayna Rain waxa soo wacay koog wuxuuna ku dhahayaa waa ogaa inay nacab tahay man igu kalsoonid arrintan aad kaliya ma xalin kartid Kim ay noloshaada dib ugu soo laabtay taasna muhiim ma ahan qofkaas inuu yahay mudanaha ama Kim qofkaas adiga ku hanjabooyo anigana mudanaha wax ka soo ogaaday marka aan wada hadalno kadib hoon ayuu u yeerinayaa Rain markay soo istaagday riishadeeda waxay arkaysaa koog inuu banaanka ku sugooyo kadib way u imaanaysaa markay gaariga soo fuusho is soo raacayaan koogna wuxuu dhahayaa qofkaas mudanaha la dhahayo qof yoo ma aha waxaana laga yaabaa Kim inuu xiriir leeyahay mudanaha taasna ma hubi Kim inuu yahay mudanaha ama inuusan ahayn Rain wuxuu dhahaysaa laga yaabaa Kim inuusan ahayn mudanaha uu yahay qof kale koogna wuxuu dhahayaa waa laga yaabaa sababta kiiskaada kiis hore ahaay meel walba ku faafay markan la isku dabagalin kuwaas
habeenkaas ku qaban lahaayeen kuwaas mar kale muuqaal xun ka duubi lahaayeen ayagana ku ogaayeen inaad dabagelaysid riina waxa ku dhahaysaa doon waa ogyahay miya inaad dabagalaay koox waxa ku dhahaya doon wax kama ogeen laakiin mudanaha ku ogaaday asagaana amray in lagu soo qabto kadibna wax laga duubo riina waxa ku dhahaysaa laakiin aad dabagalaayo kaliya aniga Sejion la isla ogeen kooxan waxa ku dhahaya hadda gabadhaas ma la xiriirtay markaas kadib riina waxa ku dhahaysaa waa wacay taleefankeeda uu dansan yahay haday wax ku dhaceen ka waran gabadhaas koox waxa ku dhahaya gurigeeda ku laabo gabadhaas ku ceeli koolka arintan kaliya baaraayo ayadan ka qaba taleefanka ii soo sheeg kadib ka kacaan koox soo dhiibay lacagta kafeega ku cabeen markuu gadaal soo fiiriyo wuxuu arkayaa riino dhul ku dhacday oo xaaladeedna xun tahay kadib ku agteed uu soo cararo oo fiiriyo wax loo soo diray wuxuu arkayaa in website dadka la soo dhigo in muuqaalkeeda bir la soo dhigi rabo markuu taleefankeeda sii fiiriyo wuxuu ogaanayaa in sababtay dadkan u dabagalayso inay tahay in marka la muuqaal laga duubay kooxna uu yaabayaa markay xaaladeeda fiicnaato gurigeeda ayuu keenayaa wuxuuna ku dhahay xaaladeeda fiican tahay waxaasna wax macno lama ahan inay silaaf soo daayaan muuqaalkaas waa wax aan macquul ahayn asagoo warku wadana ay gaariiska degaysaa ayadoo sii socotana wuxuu ku dhahayaa walwalintaas anaa soo qabanayo kuwaas markuu kasoo tagana saaxiibkiisa ayuu u dirayaa linkii website-ka saaxiibkiisa taliyana wuxuu ku dhahayaa waa baar website-kaas laakiin cibaanka lagu sameeyey waa wadanka banaankiisa wayna adagtahay in la raadiyo locationkiisa in la raadiyana waqti badan ay qaadanay kooxna wuxuu ku dhahayaa wax walba kugu qaadato beri waa inaad soo heshaa locationkiisa maalintii xigtayna riin waxay isku diyaarinaysaa inay isdisho sakiina isku disho iyo kaniiniyaal sii diyaarsatay warqad dardaaranna way qortay ayadoo taleefanka fiirinaysa ninkaas jeclaayeen waxaa loo soo dirayaa muuqaalka Sejion wuxuuna ku dhahayaa adi muuqaalkaada ma soo fasaxaa mise keedaa soo fasaxaa haddii kale cibaankaas imow riin cabaar ay ka fikiraysaa waxay samayn lahayd koox asoo taleefan gashta jaajarka waxa uu imaanaya kii wariye ahaa oo hadda ka hor warbixinta kiiska riin siinayay markay banaanka wada yimaadeen wariyaha waxa ku dhahayaa waxa uu egtay qof kiis weyn raadinooyo kiiskaas ma ila wadaagtid koox waxa ku dhahayaa adile su'aasha weydiisay hadan adile isku jawaabosid wariyaha waxa ku dhahayaa shalay waxa helay email waxayna ku saabsaneed kiiskii muuqaalada 2002 ma xasuustaa kiiskaas oo gabdhaha muuqaalada lagu soo dhigayay kadib uu soo istaagaya lacag ayuu jeebka u gelinayaa koox wuxuuna ku dhahayaa labadeen waxa kaliya oo daneena qaaska ah oo kaliya marka isfahamno kooxna oo lacagta fiiriyo ku qoslaya wuxuuna ku dhahayaa kiiskaas in la xalay way adag tahay marka warbixintaas ku sheego qof dhan ha u sheegin goobtaan fiicna kuugu sheego meel degan aadno markuu luuq keensado inuu garaaco bilaabaya markuu cabaar si fiican u garaaco lacagtiisa ayuu celinaya wuuna ka soo tagaya riina gaarigeeda ay soo qaadanaysaa kooxsi uu wiciisana ku daashay kadib fariina u diray waxayna ku dhahay Sejion halisa ku jirtaa cibaankaas imow kooxna markuu soo laabto maqaayada taleefanka fiiriyo wuxuu arkayaa riina mar badan ay soo wacday riina meesha u tilmaamtay oo aadaya riina meeshii lagu balamiyay ay imaanaysaa markay gudaha soo gasho waxay arkaysaa in sharoobadii meeshii loo sii saaray riina sharoobada ay cabaysaa markay dhameysato madax ayaa loo gelinayaa wax madow kooxna saaxiibkiisa taliyaha ayuu wargelinayaa wuxuuna u dirayaa cibaankii riin u soo dirtay wuxuuna ku dhahayaa meeshii imaada laba gabdhood xun lagu sameey rabaa anina wadada ku sii jira riina kuwii markay xireen madaxii wax u geliyeen ay ka bixinayaan ayagana maaska wajiga u xirnaa kadib riin waxay sheegaysaa magaca doon ayagana doon maaska wajiga u xirnaa ay ka furayaan waxayna ku dhahayaan qoftan aday ku dooratay riin waxa ku dhahaysaa doon maxaa waxaan u sameynaysaa Sejion naabay doon waxa ku dhahayaa aniga wada kale ma haystay aan wadada ahayn Sejion dhinaciisa ka oynaysay riin waxa ku dhahaysaa aniga waa imaaday gabadhaas iska daaya qoftii dhameeday waxaan kala waday ayaa soo baxayso riin ayay u imaanaysaa ayadana maasa u xirnaa markay maas ka furto riin way yaabaysaa qoftii dhameeday balaayadan kala waday qof kale ma ahanba waa Sejion miskiin iska dhigaysay riin ayada darteeda intuu imaaday sidii ugu badbaadis balaayadan Sejion waxa ku dhahaysaa aniga waa hogaamiyaha tiimkan mudanaha hore soo kuguma digin inaadan waxba la wadaagin qoftii soo dhigay sabradeeda aan la soo dhigay doona meesha xamaw ka ahanba waxayna u sheegaysaa runta qofkii hadiyada loo keenay ayada ahayd doona ayadoo jeclaa markay fasalka wada joogeen ayadaa ku dhahday aniga darteeda wax mu samayn kartaa asagana qof too kale u balamisay muuqaalna way ka duubatay maalintii riin dirishada ka arkaysay asaga wuxuu ku dhahayaa mar hore waxay ugu dhahday inaad tiris muuqaalkayga welina ma tirtirin anigna waxay kaa caawiyay macluumaad in muuqaal laga duubo anigna hore iguma sheegin inay rabtin inaad muuqaalo kale ka duubtid macluumaadda oo arrinta aad sii wadaysid Sejion waxay ku dhahaysaa macluumaadda muuqaalkeeda halaas kaliya wuxuu ahaa hordhac welina wax weyn ma wadhicinbo hadda leeba hawshaas bilaab tahay haddii aan hawshaas sii dhammaystirin lacag ma wehelayay haddii aadan rabin inaad muuqaalkaada faafiyo si degan hawsha asal sii wadno adigna dadkay kaa shakinin qorsheygina ku dheelin doona macluumaad riin ayuu raalgelinayaa wuxuuna ku dhahayaa arrintan ilaa heerka inay soo gaarayso ma malaynaynin doona meesha laga burinaya asaga riin waxa ku dhahaysaa Sejion oo adiga waa miya mudanaha Sejion waxa ku dhahaysaa maya aniga ma ihi laakiin waan jeclaan lahaa inaan mudanaha aan noqdo aniga shaqadan kaliya wax u qabanaynay inaan lacag helno oo kaliya riin waxa ku dhahaysaa waxa aad samaynaysiin waa ka shanlay doontiin Sejion waxa ku dhahaysaa oo maxaa ka shanlaynaa adiga magacaaga waa bedelatay noloshana si dhuumasho ugu nooshahay waana ogaa inaadan waxba aad sheegi karin kadib waxay bilaabayaan inay muuqaal si live aan ugu sii daayaan website-ka ayagoo duubitaanka wadaan waxaa gadaal ugu imaanaya koox asagana koosdo kuwa meel saar asagay ka qabanayaan wayna xirxirayaan dharkan way ka siibayaan kadib waxay maqlayaan gaariga booliiska askartana gudaha u soo socdeen Sejion tiimkeeda meesha way ka baxsanayaan riin xariga iska fure waxayna daba bursanaysaa Sejion asxaabteedan booliiska ka qabanayaan Sejion ayadoo sii ordayso riina qabanayso meeshan dagaal ku dhex marayo riin ayadoo sii baxsan rabto ayay qabanaysaa kadib rubaxsho ku bilaabaysaa kadib booliiska ka qabanayo riin qaybta hoose ku soo laabanaysaa waxayna askar tusaysaa taleefan Sejion qoraalkii ugu dambeeyay uu soo diro mudanaha nambarkaasna qaybta baaritaanka loo diraa si locationkiisa loo soo ogaado riin taliyaha waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa inaan idin raaco ma idin raaci karaa waxaan rabaa inaan ogaado qofkaas qofkoo yahay taliyaha waxa ku dhahayaa xaaladaada waa fahmi karaa laakiin
meesha salis waaye kooga soo dhaxgalay waxaan ku dhahayaa markoodana isbitaalka aada laakiin xarig sidee iskaaga furtay ayaan sakiinta u diyaarsanay isku disho ayay tusaysaa inay iskaaga furtay xariga askartan ay ogaadeen qof kale nambarka iyo adrees guriga ninka nambarka in lagu magacaabo John taliyaha markuu cibaanka helo xaafadiisa ay soo aadayeen markay rin isbitaalka soo baxdo kooga taliyaha soo diray cibaanka waxaan ku dhahayaa aad kaliga imo kooga nidin wuxuu ku dhahaa ma ku wadaa meesha askartan John xaafadiisa ku sugaayeen markuu xaafadiisa galo asoo guri iska furaayo askartan gadaal ay ugu imaanayaan John markuu askarta arko orod ayuu jabsanayaa John sidoo cabaar ugu urday askarta ayagan u bursanayeen kadib ay qabanayaan John wuxuu ku dhahayaa aniga ma ii aamina mudanaha la sheegayo taliyaha wuxuu ku dhahayaa anaga doqooma kula egnahay ardayda ay faa'iideysanaysa sidii macluumaadooda muuqaal xun ugu duubaan John wuxuu ku dhahayaa taliyaha macluumaadda sheegaysa ma aqaani qof u dirsadna ma jirto oo aniga aan ka faa'iideysanayo taliyaha wuxuu ku dhahayaa maxaa u orday marka hadda wax sameynin kadib waxa la tusaya qoraaladii isdhaafsadeen asaga iyo Sejong John markuu wuxuu ku dhahayaa abukaatale la diyaariyo taliyaha saaxiibkiisna gaariga soo dagayaan saaxiibkiisna wuxuu ku dhahayaa nambarka marar badan waa wacne John asagoo nolol joogo nambarkaasna asaga ma wato asagan agtiisa ma soo dhacooyo taliyaha waxa loo sheegay locationka nambarka welina ka daarayaan gurigiisa Reena guriga John ay imaanayaan waxay arkay dhalo meesha lagu tuuray Reena guriga gudihiisa ay soo galaysaa koogna wuxuu ku dhahayaa banaanka noo bixi mudanaha inta ma joogay askarta mar hore bursatay banaanka ku sugna booliiska si ay cadeey meesha uga helaan Reena iyadoo guriga fiirinayso John cunugiisa arkay galaas koobata ay dhulka tuuraya cunugna saayid u naxsana Reena cunuga waxa ku dhahaysaa isdaji anaga dad xun manihin cunugna naxdina u shidneed koogna shahaadooyin darbi suram ku arko iyo cunuga inuu ku fiican yahay hacking internetka iyo codinga computerka gees kalma ko fiiriyo wuxuu arkayaa in website-kii dhamay dadka la soo dhigi jiray inuu ka daaran yahay dhinacaas koogna intoo shakiyo nambarka mudanaha ayuu wacayaa markoo dhacane waxaaba taleefanka siistay cunugan mudanaha la raadinaya qof kale ma aha waa cunugan yariiska taliyana guriga orod ku imaanaya Reena cunuga la yaabaysaa waxayna ku dhahaysaa adiga miya mudanaha kadib wiilkiisa dhiga ayaa la keenaya waana la wareysanaya taliyana hore u sheegaya in cunugan waxaan ka ahayd ciyaar aabiis loo koobiyeenay sidoo ardayda ugu shaqaysan jiray markay la xiray aabiis tiimkii uu maqaalada gada jiray John wuxuu ka cabsaday asaga in la xiro kadib oo dhuuntay asagoo cabsan ayuu wiilkiisana arkay taleefankiisa wuxuuna fahmay sida wax u kala socdaan kadib wuxuu bilaabay inuu asaga mudanaha uu noqdo markaas kadibna wuxuu la xiriiray Sejong tiimkeeda waxaana agtiisa baashaal iyo dhedheele ka ahayd mana la maxkamadaynayo maadaama uu yar yahay kaliya dhaqan celina la geynaa korna la soconaa asaga markay banaanka soo baxaan taliyaha Reena wuxuu siinayaa Kim ciwaankiisa wuxuuna sheegayaa Kim inuu isdilay janaasadiisna mar hore la dhigay Reena wuxuu dhahaysaa koob kabaran qofkii hanjabaado ahaan lahaa kabaran John ama sidaan u maleynaa Kim haduu ahaan lahaa mudanaha marka ogaado qofkii hanjabaayo i karkariyay inuu yahay cunugan asagana waxaan ka eed dhedheel markaas kadib aniga waxaan dareemay deganaan iyo raaxo koog wuxuu ku dhahayaa waxa la gaaray waqti aan bixi lahaa kadib wuxuu siinayaa hadiyado sanad badan u hayay Reena markay gaarigeeda soo gasho ayay furaysaa koog wuxuu siiyay waana okiyaalaheedii markay yareedee lahayd oona habeenkaas ugu dhacay gaarigiisa halkaas ay ku dhamaaday filimka ay laabina muuqaalka like saartid saaxiibka cusub channelka haddaad tahay subscribe soo dhig channelka